هل عبشو ولا حلي واي بروبلم كإلا يونايتد ايرلاين ديارد اللي راه متقنين ديارد عانا مريكان كايسكر دياردها وويني كجرتا يونايتد ايرلاين الله 2008 waxaa soo raacay nin muusikista oo magaciisa la dhigi jiray Dave Caro muusikista marka wuxuu watay gitaar bahalka oo lagu muusiga lagu garaaco wad diyaaraddu soo saartay qolada boorsooyinka dajiyay markii 3500 wana ku fadhiya qolada oo boorsooyinka dajiyay markii ay dajinayeen boorsadii uu ku jiray tooreen ninka waxa ka jajabay gitaarkii waa ka jajab shirkadu soo wuxuu dhahay gitaarkii waa jabiseen ii guda gitaar ii gada yaa shaqo kula arintaas qofkii koowaad uu soo wacay customer care qof joogu ahaa wuxuu dhahay maamulkan ku gudbinaa qof kale maamulkan ku gudbinaa saana lagu yeela ninkii waxay ku qaadatay arintaas 6 bilood ay ku qaadatay in problemka loo xalliyo wili loo ma xallin heesu sameeyay marka oo YouTube ku jirto waxa la yiraahdaa United Breaks Guitar shirkadda United Airlines la dhaho haddii aad saarato gitaar waa ka jabinay heesta magaciisa saar maalinkii waad 150 kun oo qof aad daawatay markii ku jirtay 24 saac bil kadib waxa daawatay 1 milyan ilaa hadda YouTube ku jirta wuxuu maraa 22 milyan oo maraa viewskeed Stonk United Airlines value-geedu wuxuu hoos u dhigay 110 waxay u dhigantaa 180 milyan oo dollar waxay shirkadda ku qasaartay 185 milyan oo dollar 180 milyan ku qasaartay hal cabasho uu qabay qof customer uu qabay inkaas kaliya wuxuu u baahnaa in inta la dhageysto haddaan xataa loo gadayn la dhaho raalli ah oo bas intaas ku filan raalli ah waxba kama qabarna karno la dhaho in la ixtiraam